الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxaan waaxda xalane waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha ku xigeenka degmooyinka waxaan u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha gobolka Banaadir shaqada aad haysaan way aragtaa ummadda Soomaaliyeed inaad maalin dhaweed furteen wadada kacaan oo haddana la yiraahdo cirtoogte oo xirneed in ka badan 20 sano waa iftiin ummadda Soomaaliyeed ku soo kordhay in maanta halkan aan taaganahay waxay ka turjumaysaa lama arin koow dalkeenu meeshii uu gaaray inaan iska nadiifin weyna qashinka si aan u noolaano laakiin maanta inaan u soo jeesanay inaan qashinka iska nadiifino oo ay xildhibaanadii madaxdii qaranka ra'iisul wasaare ku-xigeenkii gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka ay nala joogaan waxa ay ka turjumaysaa in Soomaaliya isku duuban ay u soo jeesatay inay dalkeeda dib u dhisato waxaan u mahad celinayaa qof walba oo Soomaaliyeed oo ka qayb qaadatay arrinkan annagu qaaqin nadiifin haddaanan annagu guryaheena rinjiyeysan haddaanan annagu soo celin bilicdii qarannimada ummadda Soomaaliyeed cid noo soo celinaysa male waa inaa ogaataa qof walba Soomaaliyeed ay gurigaada hortiisa haddaan nadiifisid waa qayb ka mid ah qarannimada iyo hagaajinta dib u dhiska dalka Soomaaliyeed haddaad ka qayb qaadatid nadaafada guud iyo iskaa wax u qabsaha waxay qayb ka tahay inaad dalka dib u dhisaysid haddaad dalkaada wax wanaagsan ka sheegtid oo aad wariye tahay waxay ka mid tahay dib u dhiska dalka haddaad ummadaada u naxariisato ciidanka Soomaaliyeed oo amniga sugaya wax u qabatid oo biyo siisid waxay qayb ka tahay qarannimada iyo dib u dhiska dalka waa inuu qof walba Soomaaliyeed ogaadaa dalka kaliya oo aan leenahay oo naga wada dhaxeeya waa kan laba jid baa noo furan inaan fiirsano qashinka aad aragtaan meel walba dunida ka joogtaan iyo inaan qashinka iska nadiifino qofna kama weyno qarannimada iyo dalkiisa gobolka Banaadir waxaan ka codsanayaa in la sii dardar geliyo shaqada iskaa wax u qabsada oo dib loogu nadiifinayo dalka dib loogu dhisayo dalka gobolada dalka oo dhan waxaan ka codsanayaa in laga bilaabo abaabul sidaan oo kala wasaarad walba iyo wasiir walba waxaan ka codsanayaa inuu xaafadda uu degan yahay iyo wasaaradda uu ka shaqeeyo uu ka bilaabo shaqadaas xildhibaan walba iyo senator walba waxaan ka codsanayaa isaguna qaybta uga aadan inuu ka qaato waxaan u mahad celinayaa mar labaad dadkii arrimahan ka soo shaqeeyay gabdhaha Soomaaliyeed oo jidadka taagan oo nadiifinaya oo gacmahooda ku nadiifinaya kuwaasa haliyeeye qaran ah kuwaasa sharafta ummadda Soomaaliyeed wada inteena kale oo aan wali arkin waxaan ka codsanayaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan ku baraarugno mar labaad waa idin mahad celinayaa waxaan idinku dhiiri gelinayaa qarannimada ummadda Soomaaliyeed way muuqataa wax yara hare aan gacmaha isqabsanno waa mahadsantiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh